halkan aad arkaysaan inay tahay wado xiran wadadani waa xiran tahay dhagax baa ku rogan muddo sanad ku dhow ayay sidaas tahay waa wada howlbowle ah ka tirsan magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafadda Garsoor waxaad garan kartaan isticmaalkeeda iyo muhiimadda ay bulshada u lahayd ayadoo halkaani dhagaxna ku xiran yahay markii roobku da'ana ay aad iyo aad u sii dhibaato badnaato oo arrin wax u dhimaysa caafimaadka waxbarashada iyo isi socodka ee magaalada intaba sidaas darteed dadka halkaan taagan waxa weeye waa xildhibaanadii golaha deegaanka 7 xubnood oo ka mid ah xildhibaanadii golaha deegaanka hay'adii dhismaha Karbaarko injineerkeedii iyo qayb ka mid ah community-ga xaafadda waxaanu istusnay wadadana inay muhiim tahay in degdeg wax looga qabto ayada iyo kuwa kale oo la mid ah oo sidaas u xiran magaalada waxaan abaabul sameeyay community-ga deganaa xaafadan khaas ahaan wadadan hadda qashinku u yaalo ayagoo bilaabay in contribution dhexdooda ah inay sameeyaan ka dawlad ahaan dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaduna inay ka qaadato qaybteedii contribution-ka haday noqoto haday qalabka iyo cagafta iyo noqoto waxaan u leenahay oo ku bogaadinaynaa community-ga degan ee xaafadda ama ka soo jeeda in ay ka qayb qaataan wadadan iyo kuwa la midka ah oo maaragtay sidaas u dhibaataysan ama u xiran aad iyo aad baad u mahadsantiin maanta soo nimid xaafadda Garsoor wada kamid ah oo runtii baahi weyn ay u qabeen shacabka xaafadan degan in wax looga qabto waan uga mahadcelinaynaa baahidaas oo ay naftooda ay qayb ka qaadanayaan annaguna aanu qayb ka qaadanayna ka degmahan waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa company-ga Karbaarko oo runtii halbowlo u ah runtii wax qabadka iyo horumarka magaalada Gaalkacyo oo aanu rajeynayno inuu 100% asagoo nagala qayb qaadan doono wadadan dhismaheeda iyo maaragtay iyo xaafadda Garsoor waliba shacabka maanta iska aruuriyay contribution-kan iyo maayirka golaha deegaanka oo runtii asagoo hormuud u ah horumarka magaalada Gaalkacyo waxaan rajeyn doonaa intaani in ka badan baynaynu shacabka u qaban doono aadna waa u mahadsantihiin waxaan rabnaa halkan laami inaan saarno waxaad ka mid tahay malanaya dadka xaafadda degan ya si warata marka way inaad maartay wadadaas ay ku qurux badnaato laami lagu ya waxaan rajeyn doonaa hadii ilaahay idmo waxaad tahay qalbi fiican oo soo koraya meeshaad mari lahayd wadadaad mari lahayd waxa kula hadlay wax xildhibaanada golaha deegaanka dawladnimada mustaqbalka soo koraya tahay waxaan rabnaa inaad aragtid dawladdaada oo wax ku qabanaysa aad ku faraxdid dabcan waa ku faraxsantahay Soomaaliya dawladdaada wax ku qabanayso ya aad baa u maasantahay xaafadda hagaajinayna insha Allah hadii ilaahay idmo sida hadda ay maanta tahay mar ahaan mayso waana laami waana la saaraya insha Allah hadii ilaahay ma hadda u taaganahayna waa iyada way lacag $1,500 baan xaafadda ka soo dhagayn ayadii baanu haynaa oo gacanta ku haynaa guryaha waad u jeedaan koowa laga guuro waa laga carar biya looga carar been inii sheegmayo roobku markuu doo biyahaasi waxay fadhiyaan 4 bilood bay fadhiyaan wadada oo dadka xataa lafihiisa aan urka qurunka iyo baktiga iyo wax oo dhan laga cararayo guryaha waad aragteen qaar baa duusan oo baaba'san oo biyuhu dumiyeen waa ilaahay mahadis maalinka maanta haddii aad aragteen waxa meesha yaala waxaanu codsanaynaa annagu waxaanu haynaa waa inta in wadada wixii laga qaban karo oo laga qaban karo naloo qabto baahi weyn baa nahaysa oo wadada noo haysa waa u jeedaan oo waxa weeyaan dhagax iyo qashka yaala waxa fiicnaan lahayd maalinka maanta iyadoo roob day inaad timaadaan waa fiicnaan lahayd qurunka ka soo karay halka fiir qurunka ka soo karay iyo waxa ka soo karay ruux bilaaw aadanaha meeshan ku nool isma oran kadib roobku markuu doo musqulaha biyaha soo tuuraya ilaa afka ka galahayaan bul markaas ay dabada ku soo dhacaya nadaafadii iyo caafimaadkii iyo wixii oo dhan everywhere Allahu barakaatu waaweye waa ilaahay mahadis waxaan isugu nimid in wax la qabto waxaan noo yeeray degmada Gaalkacyo duqa iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo ololeynayay wadadan in laga shaqeeyo iyo shacabka reer Garsoor annaguna hadii aan leedno waxaan rabnaa inaan dhiirigelino qaybteeda ka qaadano maadaama ay go'aansadeen inay mushkiladda halkaan ka jirta la xalliyo shirkadda Karbaarko iyadu mar walba waxay u taagan tahay dhiirigelinta shacabka iyo meel walba oo wax laga qabanayo in ay tayeyso ay haddana tiigsigu waa wax important ah in wax la tayeeyo oo meeshaan la qurxiyo oo halkaan la gaaro laamigaas laga dhigo waa wax important ah
macno ma leh xoogaa lacag oo la helo waxaa macno leh in wax la qabto oo dadku wax u haraan oo meeshaan laga guuray la dego waxaa looga guuray isaan u malaynayo meeshaan weli biyihii baa yaalla hadda roobkii da'ay marka insha allahu tacaala waxaa naga go'an inaanu wax ka qabanno haddii aan la idmo contributionkeennana aanu ka qayb qaadano shirkad ahaan